munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ujeedkeedu ahaa soo dhaweynta iyo garab istaaga mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sida wasiirka wasaaradda Dr. Cali Xaaji Aadan Abukar, wasiirka hoggaanka Dr. Maxamed Xasan Bulaale iyo wasiiru dowlaha Dr. Maryam Maxamed Xuseen. xafladda oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, xildhibaano, madax ka socotay isbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ayay mas'uuliyiinta iyo dhaqaatiirta ka hadashay duco iyo talooyin wax ku ool ah u soo jeediyeen mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda caafimaadka, waxayna ballan qaadeen inay ku garab istaagi doonaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda caafimaad ee dalka. waxaan rabaa wasiirka iyo tiimkiisaba inay bal ogaadaan maadaama horena uga soo shaqeeyeen waddanka dhibaatooyinka waddanka haysta iyo sida priority-ga ay u kala leeyihiin. waxaan kala ognahay marka laga hadlayo caafimaadka tiirar ay ku taagantaha jirta. tiirka ugu horeeya wuxuu yahay kaadirka caafimaadka ama waxa la yiraahdo human resource for health. waa nasiib gaar ah aan leenahay bahda caafimaadka. wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha dhammaan waxa ugu duceynaa in Ilaahay u fududeeyo mas'uuliyadda loo igmaday. waxa ay mudan yihiin waxa waa hambalyo, garab istaag iyo dhaliishooda oo aan banaanka lagu sheegin loogu yimaado halka munaasabka ay tahay. gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf ayaa mas'uuliyiinta cusub u soo jeediyay inay la bajibaaraan shaqooyinka hortebinta u leh caafimaadka dalka. waxaan ogahay dhaqaatiirta iyo dhalinyarada soo baxday oo waddanka ka soo baxday si qeyr caadi ah inay talented u yihiin, dad inay hor u kac sameeyaan inay yihiin, oo taas la rabo wasaaradda inay gacan ku siiso sidii hore u kici lahaayeen. haddii gacan la siiyo dadkan talentedka ah oo dhaqaatiirta ah oo muddadan la soo saarayay, waxay Soomaaliya gaaraysaa heer ay uga maaranto bukaanadeeda ayagoo aan lacag haysan oo masaakiin ah la yiraahdo dibadda aada. Senator Professor Ismaan Maxamuud Dufle ayaa dhankiisa ballan qaaday inay garab istaagi doonaan madaxda cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. waxaan rabaa hambalyo inaan u gudbiyo iyo bogaadin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo prime ministerkeena xamza cabdi barre, runtii oo ay tahay arrin ugub ah markii ugu horreysay oo kawaadir caafimaad ama dhaqaatiir caafimaad ay ku wada kulmaan wasaaradda caafimaadka ayagoo mas-uuliin oo wasiirkii, wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka. waxaan ballan qaadaynaa in aan runtii aan aad idinla shaqeyno, aan saa wada shaqeyn jirnay si kasii xoog badan bacda. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen bahda caafimaadka. niman dhalinyaro aan nahay energetica damacsan runtii in ay jiheeyaan caafimaadka dalka. waxaan rajeynaynaa inaan ka tagno foundation adag oo ay ku mataqaanaa riyaaqi doonaan bahda caafimaadka nooc walba yihiin, hadday laab yihiin, hadday dhakhaatiir yihiin, hadday isbitaalada yihiin, haddii hay-adaha kala duwan yihiin. ugu dambeyn wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo munaasabada soo xiray ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay, wuxuuna ballan qaaday inay xoogga saari doonaan wax ka qabashada xaaladda caafimaad ee dalka. maadaama wasaaradda ay tahay markii ugu horeysay oo wasiir ku-xigeen, wasiir dowlo bahda caafimaadka loo dhiibo ay tahay, waxaa muhiim ah in looga tago raad muuqdo, in taariikh laga tago ayaa muhiim ah. magaca dhaqaatiirta oo dhan ceeb aan loo keenin, laakiin magacaas uu koreeyo weligiis. annaga uma baahnin in maaragtay shilimaad meesha aan ka qaadano. dad professional ah oo shaqaysanayo sharfana ayaan ahayn. haddana aniga maxaa amiin xildhibaano ayaan nahay. haddii wasaaradda aan ka tagnaa haddana maaragtay waxaan haysanaa maaragtay job security aan haysanaa ilaa muddo 4 sano ah. marka kama cabsanayno marka shilimaad aruuri laguma jirto. muhiimadeedna waxaa waaye inaan dhaxal ka tagno, inaan magac ka tagno, idinkana inaad nagu garab istaagtaan, nagu dhiirigelisaan waddadaa cad inaan ku soconno oo maaragtay wasaaraddana meel fiican aan gaarsiino, meesha hadda ay joogto kasii sarreyso.